بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم waxaynu soo gaaray xalaqadii sideedaad ee casharadeenii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa qasaa'idka iyo qabuuraha maxaa ka dhexeeya mar allaale markii qabuuraha la tago oo siyaarooyinka loo tago oo halkaa la tago qasiidooyin baa lagu dhiftaa rag gaaraa ku dhifta rag gaaraa allufa sheekadu marka maxay tahay ma cibaada mise waa ujeedo iyo dana kale cibaada hadday tahayse yaa sharci gareeyayoo xagee shareecadana islaamka raad kaga leedahay qaybteennan marka insha allahu tacaala waxaynu ku bilaabaynaa xadiiska nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi nucmaan ibnu bashiir xadiiskan waa xadiis saxiixa nucmaan ibnu bashiir radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaan maqlay yaquulu isagoo leh adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaado nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi markuu intaa yidhi wuxuu aqriyay aayaddan wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin aayaddan cajiibka ah waxay inoo caddaynaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yidhi addoommaraydow ibarya goorta ay baridaan amar buu horta bixiyey oo wuxuu yidhi ibarya aniga ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa kadib wuxuu yidhi astajib lakum waan idinka aqbalaya baryada waan idinka aqbalaya labadaa jumlo oo isfuraaya oo amarka ilaahay inuu ina siiyey oo inoo diray meel wanaagsan kadibna inoo ballan qaaday waxaa wehelisa ciddii diidda ciribdameedeeda xaggee ku dambaynaysaa ama si kale u dhigta ina aladiina yastakbiruun kuwa inay sidaa yeelaan diida ee cibaadadayda iyo baryadayda diida sayadkhuluuna jahannamay gelaayeen ogow ilaahay baryadiisa qofkii diida oo ka kaaftooma waa qof ilaahay ku kufriyey oo ka kaaftoomay oo iska weyneeyey oo xoog iyo awood iyo sheegtay oo bannaanka ilaahay cibaadadiisi ka maray duulkaas markii yidhi annagu ilaahay baryi maynehe meeshaannu baryayno iyo saan wuxula soo baxayno waa garanaynaa oo ilaahay ka kaaftoomay sayadkhuluuna jahannama daakhiriin jahannama ayay geli doonaan iyagoo weliba dullaysan ma ujeedaa halkaa marka waxaa inoo ku caddaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala baryadu inay tahay shay muxuu ahayd amar ilaahaya oo cibaado ah oo ilaahay ina amray oo inoo ballan qaaday ijaabada ciddii diiddana iyadaa cirka roobku og imaamu maalik wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya waxaa la yidhaahdo bidcada waxyaalaha islaamka aan raadka ku lahayn oo ilaahay loogu dhowaado oo ilaahay kayrkii loo sii maro oo bidcada ah oo ilaahay lagu caabudo wuxuu yidhi man ibtadaca fi lislaami bidca qofkii islaamka dhexdiisa la yimaado bidco shay bidco ah oo aan hore u jirin oo musayafa oo muxdatha isla markaa yaraaha xasana wanaag buu u arkaaya shaygan shay wanaagsan buu u arkaaya isaga saasay la tahay faqad zacama qofkaasu wuxuu sheegtay afka yuu ka odhan hadduu rabo laakiin farsamadiiyo falaadka waxaa ka dhadhamaaya anna muxammadan qad khaana alrisaala nebiyullahi maxamed risaalada waa khaa'inay oo waa kala qariyey saasaa farsamadiisu u eg tahay waayo cibaadadan nebigu ma samayn saxaabatu rasuulillaahina laguma arag fiqhiga dadka salafka ahna laguma arag ma ujeedaa marka wixiibu haddana qofkii ag joogaa waxay ka dhigan tahay isaga oo leh nebiyullaahi maxamed risaalada qayb buu qariyey qaybta anaa soo saaray waana tana ilaahay ku caabuda ku cibaadaysta allena ugu dhowaada ilaahay subxaana wa tacala arrintaa isagoo ka hortegaaya wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum nebiyullaahi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi aayaddaas markii kusoo degatay wuxuu joogay xaajatulwadaac maanta diintiinnii waa idin kamilay wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadiina waan idinku taam yeelay waradiitu lakum alislaama diina islaamnimadana diinta islaamka ayaan diin idinka dhigay oo raalli idinka ahaad soo ma jeedid sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala yaa ayuha rasuulu rasuulka ilaahayow suuratu lmaa'ida aayadda 67
rasuulka ilaahayow balliq maa unzila ilayka min rabbik ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa wixii lagaaga soo dejiyey ummadda gaarsii ummadda waxaad gaarsiisaa wixii ilaahay kuu soo dejiyey oo khayr ahaa oo diin ahaa oo risaalo ahaa oo sharci ahaa ummadda gaarsii wain lam tafcal haddaadan gaarsiin oo saa aadan yeelin haddaadan saa yeelin famaa ballaqta risaalatahu risaalada ilahay maadan gaarsiin nebigu marka wuxuu ku khasbanaa oo ma'muur ku ahaa isla markaana fuliyey risaaladii loo soo dhiibay xabad kama qarin xabadna kama tegin xabadna kama hambayn kulli waa sheegay say ahaydna waa u sheegay soo uma jeedid halkaa marka waxaan arkaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi addoon ilaahay karaameeyey ayuu ahaa imaamu maalik marka isagoo khatimaya hadalkaa wuxuu yidhi walaalayaalow maalinta nebi maxamed joogay waxaan diin ahayn maanta diin noqon maayaan famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakuuna alyowma diina ma ujeeda maalintaas waxaan diin ahayn maantay diin noqon maayaan sow hadal qiima leh oo jawhar iyo dahab in lagu qor istaahila ma hadalkaas hadday walaalayaalow sidaa inoo tahay oo nebillaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi qof diidan inuu jiro malayn maayo dadakan waxaan samaynayana waxaa u geeya gacalo iyo gacalcuun waxa la yidhaahdo gacaladii baa ka baratay kadibna quluwi bay la yimaadeen iyo waxaa nebigu jidayn salawaatullahi wasalaamu calayh hadday marka saa tahay maxaynu sidaan u nidhaahnaa walaalayaalow dadka muslimiinta ah walaalaha ahow arrintaas ka baxa arrintaa iska dhaafa shareecada iyo qawaacidda barta adkaarta sharciga ha la barto dadkana ha la baro ma ujeedaa dadka qabuuraha laga daayo qabuuraha waxbayna kagama xiraa qabuuraha iyo shirkigu waa saaxiib qabuuraha iyo sanam caabidku waa saaxiib soo ma jeedid qasiidadan marka jiilaaniyada iyadana tii hore bay u yar eg tahay maxay tahay iyaduna madad billaahi jiilaani bixaqi illaahi kuncawni haluumu aala jiilaani wadikra alqawthi qannuuni haye waa dheer tahay xoogaa qasiidadan iyadana sheikh jiilaani baa la magan gelaya dadka bulshada loo yeerayaa waxaa la yidhi war sheikh jiilaani magan gala isaga kan allufayaana sheikh jiilaani cabdulqaadir jiilaani arrintaa shaqa kuma lahayn taariikhdiisana waa la hayaa kutubtii laga qorayna waa la hayaa soo uma jeedid hadba ninkii dhinta oo magac lahaa baa la daba dhigtaayoo lagu qaraabtaa oo dadka laga gadaa oo awliyo iyo ama ha ahaado ama yuu ahaane baa muxuu ahaytoy saaxada lasoo dhigaa markaasoo dadku ka daba dhacaan waa arrin falsafada waa arrin shiico ka damayso waa arrin maaragtay islaamka aan raad ku lahayn haye muxuu yidhi madad billaahi jiilaani jiilaaniyow kelimata madad hadda kore waataynu soo marray waa halku dhig waa kelimad kooban laakiin macno weyn ku fadhida waxaan kaa rabnaa madad waxaa nala siiyey inaa wax noogu dadhid inaa wax noo siyaadisid inaa waxna siisid inaa gacantaada iyo khayrkaaga iyo wanaagga agtaada yaal inaa wuxuu naga leefsiisid oo wuxuun maaragtay noo hambaysid oo wuxuu nagu soo tuudhid haye jiilaani yaa jiilaaniyo bixaqillaahi ilaahay baan kugu dhaarinayaaye kuncawni kaalmo ii ahow yaa kaalmo la weydiistaa ma ujeedda allah subxaanahu wa tacaala haye haluumu kaalaya aala jiilaani aalkiisow aal waxaa la yidhaahdaa dadka uu dhalay iyo dadka muxuu ahaytoy ee ku abtirsada marka dadka aalkiisa ah aala jiilaani yaa ah ma ujeedaa inta isagu raacsan iyo inta rumaysan iyo inta qasiiradaa qaada buu ka dhigaya ama ummadoo dhan buu ka dhigaya waa iska gabay waa iska qalloocan karaa aala jiilaaniyow kaalaya oo wadikra alqawthi qannuuni gargaaraha weyn dikrigiisa iyo xuskiisa ku heesa fadikru ljiili yuxyi alqalba wayujliinii min arrayni fadikru ljiili cabdulqaadir jiilaani xuskiisa yuxyi alqalba qalbigu noolaya wayujliinii isla markaa wuxuu iga dheerayaa min arrayni raynka iyo qalbi madoobaadka iyo fahma darrada iyo beled iyo baaska iyo damiinnimada buu iga baabi'iyaa fa muxyidiin waa cabdulqaadir jiilaani iyo marquubi ma ujeedaa goorta la qaadaayo oo ay isku duba dhacdo oo jaanta laysla helo oo wiilal yaqaan oo sawdku isla helaan
oo sanama durbaan lagu daro oo bir iyo alaab kale oo la garaacayo maqnaadiis iyo muusiiqo lagu daro dumarka ilmuhu inuu ka soo dhaco khatara فمحيي الدين مرغوبي ومدلوبي من الكون ومفتاح من الخير ومن السر يمليني أناديكم لترعاني وللأعداء تكفيني ومهما قلت جيلاني فبادر لي وكن عوني أغثني أيها القطب وأوصلني من البين وهل شيخي ملاذ لي سواكم صفوة الكون هيه دمان إرياداس نينكي لو قادي جيريو ogow ninkan loo qaadi jirinow hadda baro kulli waa shirki iyo ilaa qirkiisa la bariyaayo fa muxyidiin marquubi muxyidiin waa waxaan doonayo waa madluubi waa waxaan doonayo min alkown kownka madluubka iyo dalabka aan ku leeyahay waa jiilaani wa miftaaxun min alkhayri khayr oo dhan miftaaxiisa waa jiilaani wa min ashirri yumliini sirri sharka waxyaalaha iga ilaaliya weeye ama sirta iyo wanaaga ii gaarsiiyo ii geeya unaadiikum waan idin yeeraya litarcaanii awliya allooy saad iga ilaalisaan oo ii ilaalisaan walil acdaa'i tafkiinii cadowga saad iga kaafidaan baan idinku yeeraya ilaahay maa loo yeerto inta loo yeeranaayo ma ujeedaa erayadaasu balday qofka iimaanka le ma u dhadhami karaan aaway hawsha ilaahay soo addoon ilaahay maahay soo ilaahay kuma leh soo haddaaya ma soo marin ilaahay subxaanahu waqaala rabbakum udcuunii ibariya astajib lakum soo ilaahay ina ma lahayn maxaa waxaan ina ogolaysiiyey maxaa ina daba dhigay ومهما قلت جيلاني مركزتو أن يراهدو يا جيلاني فبادر لي إيسو دقدق وكن عوني كالمريدان أهو جيلاني ومياشا اسكقادو كالمريدان أغيثني أيها القطب ورتير كانوا إي قرقار بعد لي أضا قرقار لي وأوصلني وحادي قارسيسان من البيني يمحوها يتميل سرعي وناق درجة يقارسي وهال شيخيقا وحانا هين مياجرة وملاد لي ميلان مغنقل أو شيخيقا آنا هين مياجرة وسواكم إذنك آنا هين صفوة الكوني كونك كوي لغد دورتيو ميلا مغنقل وإذنك آنا هين مياجرة موجودة سبحان الله سبحان الله erayadan marka waa laynoo qaaday waa qasiida maaragtay waa ka jiilaani baa iska leh ninkii ururiyey baa ururiyey ee deera isagaa iska leh ciddii qaaday iyo ciddii maaragtay ku baaba'day iyo ciddii dambi ka gashay iyo ciddii aakhiro ku banjadhay ee deera isagaa iska leh waa arrintaa marka anagu waa ka digaynaa waana qalad culimada soomaaliyeed islaamkaana waxaan ugu naseexaynaynaa erayadan ha la macneeyo oo ha la faahfaahiyo oo dadka ha loo sheego oo ha loo duubo oo qalabka hadda la isticmaalo oo sharkoodu badan yahay بل انتا يره لو غليو سي uga faa'iideystaan hadalkan uu yushbihu qawluhum qawlkan wuxuu shabaha qawl al-shi'a ar-rafida alladhina qalu yiri la yaqbalu Allahu la yuqbalu ad-du'a illa bi asma'i lammi aima bariyada ilaahay la bariyayo lama aqbalo hadaan asmaa'da aimada lagu dhawaaqin waa fikirka shiicada ilaahay toos looma bari kare aimada waa in la soo mara aimada goorta ilaahay ku geesayo ilaahay saa kaaga aqbala waa sidada la sii mara fikirkaasi la macna tahay way وحين يراهدين شيعادو لا يفلح من دعا بغير الآئمة آئمة عدان حين قفك إلهي كبرية أو توس برية لقما أقبله من اللي يبانه ومن فعل ذلك قفك سدا يلانا فقد هلك قفك إلهي أن أولياء أنبياء يؤسي مرن آئمة لبي طبنكي شيعادة 12 لبي طبنكي قف كان سيمرن متكمدة وهلاك سمي ومن دعا بنا قفكي هدانو آئمدنا إلهي نقو بريانا فقد أفلح والليباني ومن دعا بغيرنا غيرك يقفك إلهي يقو بريانا هلاك واستهلك وأنا هلاك سمي ومدينة وهلاتي سو ما ركتيد فكر كامركا وحكوية البحار والنوار صفحة مجلدة لحية لبعتناد صفحة صدح بقول يطبان يسقالات هل كاسي بهذا الكاليغ سوغوريا كتاب كاس بحار والنوار كاللي هذا الشيعاد وإسكالي هذا هاي أيا وكوية هذا الكاس هدي إلهي غيرك إلهي أن أئمة لغو بريين إلهي دعانا ما أقبله أئمة وانا سيما لا شك warkaan marka suufiyada nooca kana ay inoo qaadaan oo jiilaaniyada iyo wixii lamada inuu hadaay aragna iyo kuwa kaleba waa ereyadaas muxuu ahaytoy shiicada mabda'oodaas laftiisa xambaarsanta والله تعالى يقول في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلهي سوء إنو جهينا سبحانه جل جلاله إلهي با مهضله إلهي با وناقله إلهي با شرف له إلهي با أبال له إلهي با من له سبحانه جل جلاله إلهي با إنا كفلا إلهي با إنا كفلا إلهي هلا بري سبحانه وتعالى
ولله الأسماء الحسنى إلهي أسماء وناكسن بوليه فادعوه بها كبرية اسم ماذا إلهي سبحانه وتعالى كبرية ويه اسم ماذا إلهي كبرية سبحانه جل جلاله إلهي الكبرية ويه اسم ماذا مشكلات كستا يدب كستا يدبات كستا waxay leedahay muxuu ahaytoy meel boos bay ku aadan tahay raxmadda markii muruga ku hayso isimka ilaahay ku aadan baa ilaahay ku bariyaysaa markii mushkilad kale ku hayso isimka ku aadan markii ay ku hayso faqri isimka ku aadan markii ku hayso caafimaad xumo iyo cudur isimka ku aadan walillahi al-asmaa'ul husna fad'uuhu biha ilaahay ku bariyo subhanahu wa ta'ala asmaadiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala marka ma oran fad'uuhu bi asmaa'il a'immah أئمة أسماء ذا إلهي كبرية ميا إلهي يرمس إلهي أسماء ديس إلهي كبرية وفير صعدة مقامات كأئمة إلهي كبرية ميا لين يرمس أسماء ذا إلهي كبرية أيضا حين تري ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها مشاهد قبورها إلهي كبرية ميا إلهي إن يرمس أسماء ديس كبرية موجودة marka sida hadalka loo rogay oo loo daba rogay oo leeno baashay oo leeno dilay oo leeno dulayay ku tusinaysaa way sidoo kale waqala rabbukum ud'uuni astajib lakum ilaahi waa kan la ibariya aan idinka ajiibe asaaska qabuulka ducada hadday ahaan lahayd dhikru asmaa'il a'immada asmaa'ooda in la sheego hadday u ahaan lahayd miftaax in qaburaha la bariyo ilaahi saa lagu bariyo ad'uuni bi asmaa'il amiba ilaahi oranka a'immada asmaa'ooda igu bariya astajib lakum aan idinka ajiibe asmaa'ada ilaahi igu bariya ba ilaahi subhanahu wa ta'ala قول كودا مركا هذا من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله قول كودا قولهم هذا ومن أسباب رد الدعاء إن إلهي غيرك إلهي لغبري أسماء ديس أنا هين وحيالها سو ورد الدعاء وعدم قبوله إن دعادي أن ألا أقبل بيكتو سنيسا إخلاصكو إن دعاء إخلاص لغو سمية أصل الإجابة هو القبول وي سيد إلهي سبحانه وتعالى أيري فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إلهي بريا إلهي سبحانه وتعالى هيدن كأجيبه هيدن كأقبله سيدو كلا إلهي وحيري وادعوه مخلصين له الدين إلهي بريا إلهي سبحانه وتعالى إذن قال سيلا عبادتي دينك سيو بريديس عبادتي صدان وهؤلاء الأئمة أئمة أي شيغايان وأي شيعروا شيغانيسو من سائر البشر يبشريه كلياتو انتبه وحلو إلهي الغبر يوما شغنا إلهي كمالي إلهي سبحانه وتعالى وحليه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إلهي غيرك وحاد بريسان وأضمه أمثالكم إذنكو كلا موجودة عباد إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم بل بريا هيدا أجيبينه إن كنتم صادقين هدارهم شيئا سوما جيدين هلكا مركا وحاضر كيسا إلهي سبحانه وتعالى يؤدو مريس الله مدحيو بريادنا إلهي غيرك الله مسيم مرو إلهي با توصلو بريا إلهي بانا اللي أجيبا إلهي بانا قبل قارئ إجابة إلهي سبحانه وتعالى ضدنا الله مسيم مرو مركا سؤالنا يسيد عشر كان مركا إن شاء الله تعالى وحنقنا يا عشر كيسديرات بإذن الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.